Maantaan waxay dhahdeen cunuga meeshaas uu degan yihiin meesha ka qaad. Hayaan dhahay waan ka qaaday lacag ay ii sheegtay $5,000. wiilkii alla keenay aragtida aan arkay raggii iyo wiilashii iyo cunugii ooyin ayaan ooyay farxad oo ooyin ay iga keentay. waxa lagu qabtay gabadhii iyo cunugii ay wadatay iyadoo u waday dhanka Buulaguduud. waa muuqaal kale oo argagax leh. $5,000 ayaa lagu iibsanayaa wiilkan Soomaaliyeed. shalay ayaa laga afduubtay magaalada Kismaayo. hase yeeshee booliska ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen shabakadii hawshan u xilka saarneyd, waxaana wareysi laga qaaday naagtii afduubtay cunugan iyadoo sheegaysa halka ay geeday iyo qiimaha lacageed ee lagu heshiiyay. hase yeeshee daawada inta aanan kula wadaagin muuqaalada iyo sidoo kale xogaha sirta ay arrintan ku aadan, fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu u baaho bulshooyinka Soomaaliyeedna u gaaro arrinta noocan oo kalena ay kaga digtoonaadaan. sidoo kale nagu soo biiro ka mid noqo asxaabteena adiga oo channelkeena subscribe. waa ganacsiga caruurta oo ku sii baahaya gobolada dalka Soomaaliyeed. iminka magaalada Kismaayo ay taagan tahay, waxaana halkaasi ka bilowday shabakada aruurinaya caruurta Soomaaliyeed si loo iibsado kiliyahooda. haddaba shalay ayay ahayd markii ugu horeysay ee la arkay dhacdo noocan oo kala ah, waxaana wiilkan Soomaaliyeed laga afduubtay magaalada Kismaayo iyada oo la geeyay banaanka magaalada halkaas oo la doonayo in lagu kala wareego. hase yeeshee booliska oo arrintaasi ku baxay ayaa durbadiiba fashiliyay. waxaa iminka wareysi laga qaadayaa naagtii ka dambeysay afduubka cunugan oo sheegaysa in qiimo $5,000 ah lagu siiyay si ay u soo afduubto wiilkan Soomaaliyeed. haddaba waa kan ee daawadayaal ila daawada muuqaalkooda. Maantaan waxay dhahdeen cunuga meeshaas uu degan yihiin meesha ka qaad. Hayaan dhahay waan ka qaaday lacag ay ii sheegtay $5,000. waxay siisay $2 aan cunug ku qaado bis meeshan aan ka baxay Dudumguud aan tagay. Dudumguud markaa taan soo wacay waxaan dhahay cunugi waan wadaa intee geeya sanina ku imaan doon Buulaguduud markaa geesis gooska nina ku imaanayo ninkaas diib sida ameesho tagay. ma intaas oo qofan koon dhigi kari laakiin islaantan aan idhaahday lacagtan ku siini qaad cunugan. haddaba naagtan iyo sidoo kale naagta ay sheegaysa inay kula heshiiday qiimaha lacageed ee $5,000 ah ayaa iminka gacanta ay boolisku ku hayaan. waa kan iyaga oo boolisku faahfaahin ka bixinaya arrintaas. meel 5 kiiloomitir u jirta magaalada oo lagu magacaabo Dudumaguduud waxa lagu qabtay gabadhii iyo cunugii ay wadatay iyadoo u waday dhanka Buulaguduud. gabadhaas sidaad ka arkayseen ama iyadoo ay ku warramayso iyadoo ay sheegtay waxay cunuga u qaaday inay si qaado dadna gacanta u geliso cunugaas oo barnaamijkiisu u ahaa ganacsi in cunug laga ganacsado. waxay sheegtay cunugaas in $5,000 la ku geeyo Buulaguduud. dad kale ayaan ku sugayay oo rabtay inay ku wareejiso. waxaan u sheegaynaa bulshada reer Kismaayo shabakadii inaan qabanay gacanta ku hayno waxay mudnaana sharciga ka heli doonaan. waxaan u sheegaynaa kuwa kale ku hawlan hawshaas inaynan u soconaynin waxay iyagu damacsan yihiin. sidoo kale daawadayaal waxaan idinla wadaagi doonaa muuqaal habeennimadii laga soo duubay marka la soo qabtay islaantan iyo waxyaabaha ay ku hadashay. hase yeeshee inta aan muuqaalkaas kula wadaagin marka hore waxaad ila daawataan muuqaalka hooyada iyo dareenkeeda siday u aragtay markii ay heshay cunugeeda. cunugayga shalay 2 saac ayuu uga dhumay guriga taga inta ka dhaca nag si ilaa xalay 4 saac guriga dadeed ayaan baareynay. markay tahay 4 saac iyo bar ayaa wiil baadiyaha iyaan ka soo sheegay wiilashii soo daala ayaa haddana u naqan war wiilka halkaas baa la bartay iska xakameeyeen. alxamdu shukru wiilkii jooga la yiraahdo maamo waa lagu keenayaa adeerkay baa raacay wiilkii alla keenay aragtida aan arkay raggii iyo wiilashii iyo cunugii ooyin ayaan ooyay farxad oo ooyin ay iga keentay hadda alla u sugnaa. waa kan ila daawada. waa dareen farxad leh run ahaantii kaas oo hooyo walba oo Soomaaliyeed ay dareemi lahayd. hase yeeshee daawadayaal markan waxaan idin daawasiinayaa muuqaalkii aan idin sheegay kaas oo ahaa markii la soo qabtay islaantan cunuga afduubatay iyo hadaladii ay ku hadashay. 5 saac oo habeenimo ayaana la soo qabtay iyadoo subaxii 2 saac kala baxday cunugan magaalada. waa kan ila daawada muuqaalkooga. magaca عرب يا لولا عرب محمود هاي عرب محمود جينو محمود عمر علينا كل كان مقعس عبد الله عرب محمود جينو علينا قرمك ود ما يسوق كذا فاكر بس عاود بس
haye waagar haye hooyadiisa haye saaka 2 saac baa wiilkeeda kugu dambeysay meeqa saac way hadda aan daamareyn 5 saac iyo 4 daqiiqo oo habeenimo waan gartay okay magaca gabar Samira ya Samira Xasan xagee degan tahay Kubo Kismaayo haye Kubo xafada ka degan tahay Kubo xafada ka degan tahay asalkaada intee ka imaatay baadiye intee ka degan tahay baadiye intee ka degan tahay Sheego magaciisa Soya haye reerkiina aabaha iyo hooyada magacood aabaha magaciisa hooyada Faaduma Sheekh Maxamed bin Ali Sagal aabaha ku celi Samira Xasan Maxamed Ciyaar okay haday aabaha iyo hooyada inta degan maxaad ka qabaysaa dhishig ayay ma degan ada xagee ku dhalatay أنا كسمايا كل شيء كسمايا كل شيء أنا كنت إلما حاليجي بادية بسوكر يلا جوكت بادية يجي إذا ما قرمت كمات ما شاء الله شيء سريش قرمت كمات سنة بدي عندي جواب بس عنقن حاجات بعلك حاجات كشيء عنقن يقصح موجو يقصح موجو كشيء oo maxaa iyaa waday nin wada malay cunug yar waay cunug luwanahay maaha telefoonka 2 10 48 lambarka lama taqana aniga fiir caadi ila hadal lambarka 2 10 48 uu ku qoran yahay Xasan Sheekh Abdi ma taqana كسيسي اوكي ما تكتب انت كبرو ما كبار ممكن هاي حاجات ودي marka cunugan marka aad saamoojo ka sii xageed wadaadi ana baadiyo socday ayay socdani ayay ka socday cunugan yiriskaarka meesh ma gutay kartaa bis waa qaade waxa geeyay ciidadii soo waysay maxaa magaalada ugu socon waysay saamoojaha joogtay maxaa magaalada ugu socon waysay Soomaalida weyn magaalada cunug wal baalka laga leeyahay magaalada tiiray moogana baadiyo tuki ma amalina waan gartay sidaad u arkaysaan Samira Xasan cunugan Samira Xasan Maxamed Ciyaar cunugan saaka markay ahayd 2 saac oo subaxnimo bay ka qaadatay xaafada New Kismaayo qaasatan midnimo iyadoo sida ay tahay aabihii dhalay waa ninkan hadda u jeedana meesha fadhiya hooyadii way suuxday ilaa saacada inta dhaxdooda wax dhaqaaq waa laga leeyahay ilaahay baa mahad iskale anagu oo booliska Jubbaland magaalada Kismaayo qaasatan waxaan ku soo guuleysanay gabadhan oo saaka la baxsatay cunugan magaalada afarteed dhinacna saako laga raadinayay halkan ilaahay nagu soo guuleysay markay ahayd saacadu 2 saac iyo 40 daqiiqo baa naloo sheegay meel goob weyn ka jirta bidix halkaasaan ka soo qabanay oo wiiraan 1 saac iyo bar baan sii soconay haddana waxaa la marahayaa 5 saac iyo 8 daqiiqo ilaahay baa mahad iskale Samira waad u jeedaan waa gabar yar aad ma leeyahay wali hataa inay samaartay ilmo isa dhalin laakiin waxa ku kalifay barnaamijkan waan ogaan doonaa iyadana insha Allah aad baa mahadsantiin waxaan rajaynayaa inaad muuqaaladan daawatay haddaba daawadayaal waa inaad digtoonaataan ganacsigan waxa uu ku baahay gobolada dalka
wayna iskala baxday arrintani Muqdisho. Haddaba waa inaad meel kasta oo joogto carruurtaada aad ka fikirtaan. had iyo jeerna waxaan jecel lahaa inaan digniinta u soo gudbino bulshada Soomaaliyeed. haddaba si aysan kugu dhaafin muuqaaladeena digniinaha ah, fadlan janaalka subscribe saaro oo nagu soo bir kana mid noqo asxaabta sida maalinlaha ay nagu xiran. mahadsanidin.